Assalaamu calaykum soo dhawaada saaxiibadaan jeclaayo waa walaalkiina barahdo maanta inay wada qiso aad u xanuun badan taasoo aan rajeynayna cashiro badan aa kala bixi doonteen aan gudaha u galanago inaad muuqaalka like saartid janaalkana subscribe tiraadid let's go bilowga sheekadeenna waxay ka bilaabanaysaa Naomi qoyskeedu waxay ahaayeen qoys faqiirina inta badanna waxay la hardami jireen siday ku heli lahaayeen cuntadii maalinkaas ay cuni lahaayeen aabbaha kaasoo lagu magacaabaya Ivan wuxuu la hardamayay nolosha xitaa shaqooyin badan ayuu raadiyay laakiin waa ku guuldaraystay lacagaha yarka uu soo sameeyana maalinkii ayuu wuxuu ku bixiyay qoyskii si ay cuni lahaayeen qoyskanna waxa uu joogtay gabadh yar oo lagu magacaabo Naomi waxay xiriir la leedahay wiil lagu magacaabo Manuelna ma ahan wiil shaqaysta sidaasoo kale waxa uu kasoo jeedaa qoys faqiirina isagana laftarkiisa wuxuu la hardamaa noloshiisa sanado badan ayayna jecel isu dilayeen labada waliba soo wajir ay ahaayeen dhan kale waalidiinta Naomi arrinkan kuma faraxsana gabadhana mar rabaan wiilkaas faqiirka inay waqti ay geliso waliba waqtigaas isaga lumiso sababtoo ah iyagu waxay la hardamayeen siday maalinkaas cuntada u heli lahaayeen ugu noolaayeen nolol intaan ka qurux badan laakiin Naomi mar walba waxay diidanayeen jaceylka ay u qabtay Manuel mar walbana waqti qurux badan ay isla qaadan jireen inkastoo waalidiinta arrinkan ay ku faraxsaneen si kastaba haatee galabgalbaha ka mid ah nin lagu magacaabo Martin ayaa waxa uu soo booqday xaafadii ay ku nooleed Naomi waliba iyo waalidiinteeda Naomi ninkan hore uma aysan kulmin laakiin waalidiinta way yaqaaniin ninkani waxayna maqleen inuu yahay nin taajir waliba hanti badan haysta waxayna isweydiinayeen wuxuu halkani ka soo doonay Martin goortii uu gudaha guriga u soo galay waxa uu bilaabay waalidiintii inuu salaamo iyagana way aamini waayeen waxaan dheen mudana soo dhawow sidaasoo kale Naomi meesha waa ay joogtay waxayna firdinaysay bal in ogaato waxa meesha ka socda Martin goortii uu guriga gudaha u soo galay qoyskii waxa uu ku yiri waxaan ka doonayaa gabadhiina anigana nafteeda uma rabee waxa uu rabaa wiilkayga Maxwell waalidiintii markii arrinkaasi maqleen aad bay u farxeen indhaha ayayna taageen wax indha waa arrin wanaagsan laakiin aan ku weydiinay aw Maxwell ayay ku dhaheen waxaan jecelnahay inaan la kulanno Martin ayaana isla markiiba kursiga gadaal intuu ugu jilacsaday waxa uu yidhi wiilkaygii waxa uu jiraa shaqo weliba aad buu u mashquulsan yahay laakiin aniga ayaa matali doona marka waxaan kugu imid inaan gabadhiina aan ka guursanno Naomi arrinkaas waa ay maqlaysa aad bayna uga naxday inay maqasho waxayna isweydiinaysay wiilkaas Maxwell aydan la kulmin sidee u guursan doontaa waxayna u maleysay arrinka inuu yahay ganacsi u dhaxeeya waalidiintii iyo isaga kadibna waalidiintii arrinka aad bay ugu farxeen wayna soo dhaweyn aad bayna ugu dhoolla cadeeyeen waxaan dhaheen sharaf weyn ayay noo tahay inaan gabadheena aan kugu wareejinno Naomi oo halkaasi fadhiisay aad bay u naxday waxay xitaa ku gaartay inay aad u qayliso laakiin hadalka ayaa afkay ka soo bixi waayay iyo waliba waalidiinteeda siday lacagta uga doorteen iyada aad bayna uga naxday arrinkani waxayna ogaatay in arrinkeeda halkaas uu ku burburi doono goortii arrinkii Martin uu dhamaystay wuu iska tegay Naomi waxay bilowday inay iska fikirto maalinka xigana waxay la kulantay saaxiibkeeda Manuel waliba waxay kula kulantay meeshii haddii jeer ay kulmi jireen kaasoo geed hoostiisa halkaasna ay ku sheekaysan jireen kadibna waxay bilowday inay u sheegto arrinkii la xiriiray Martin iyo waliba in la sii rabo wiil lagu magacaabo Maxwell waalidiintana ay ku raaceen goortii Emmanuel hadalkaasi uu maqlay aad buu u naxay waa uuna jireeyay wuuna aamini waayey wuxuuna yidhi sidee u guursanaysaa ninkaas waad ogtahay aniga si aad ayaan ku jeclahay iyadana waxay tiri aniga wax kale haddaan samayn kara male waalidiinta ayaanay bixiyey ninkaasna ay siiyey sidaasoo kale waalidiintu waxay doonayeen inay ka baxaan noloshaan faqiirtinimada ay ku jiraan Emmanuel markuu intaasi maqla aad buu u naxay waxauna yiri walaalay arrinkaas ha sameyn idda xitaa lacag daarabtiin waxaan iibinayaa $1 aniga aan leeyahay dhulkaas ayaana lacagtaan isku guursanaynaa laakiin waxay tiri u maleynaya arrinkaas inuu yahay arrin dhaqangalaya sababta waalidiinteedu waxay ku sii jeedaan dhinacaasi laakiin inta aniga tabarteeda waan isku dayay inaan waalidiinta la hadlo Emmanuel wuxuu isku dayay wax walba maskaxdiisa ku jira inuu ayada u sheego waxayna ku tiri walaalow hadda waalidiinta ayaa u tagaya war wixii ay dhaanno waan arkayaa xilligaasna ilinta ayaa ka daadanaysay sababta qof wax ay guursanaysaa aysan hore u arkin waxayna ka tegaysaa jaceylkeedii dhabtahay intii aysan ka soo tegin Emmanuel ayaa waxa uu yiri la soco mar walba aniga garabkaada ayaan taagnaa doonaa wax walbo dhan Naomi waxa ay tiri okay waan arkaynaa wixii jawaab soo kordhana aniga ayaa kula soo socodsiinaya meeshii ayayna ka soo ratay maalmihii xigay Naomi waxay ku nooleed murugo iyo waliba walwal halka waalidiinteedu arrinkan ay aad ugu faraxsanaayeen rajeynayeen noloshaan faqiirtinimada
iyo weliba mugdiga ay ku nool yihiin inay ka baxaan hadda wixii ka dambeeyana ay heli doonaan nolol aad u qurux badan. Si kastaba ha ahaatee, Naomi go'aan waxay ku gaartay inaysan marnaba niyad jabin, waxayna galab galbaha ka mid ah u timid hooyadeeda si ay bal arrinkan ugala hadasho una sheegto si ay ugu qanciso in xitaa arrinkan aysan macquul ahayn. Kadibna hooyada ayay soo ag fadhiisatay waxayna ku tiri, hooye macaan, waan kuu jeeday aad baad ugu faraxsan tahay ninkan in laygu daro, laakiin hooye xaqiiqdu waxay tahay aniga ninkani ma aqaani weligeyna ma arkin, marka sidee ayaad doonaysaa inaad igu siisid? hooyadiina waxa ay tidhi gabadheedii waan ku dareemi karaa, laakiin waa ujeedaa noloshaan faqirtinimada inta sanadooyin aan kusoo jirna weliba sida rafaadka aan kusoo marnay. Marka gabadhaydiyey ama diid ama yeel, wiilkaas Maxwell waa lagu siiyey, isaga ayaana lagugu darayaa. goortay ogaatay inay waalidiinteeda qasab ay uga dhigeen arrinkani, go'aan waxay ku gaarta mar kale bal inay la kulanta saaxiibkeeda Emmanuel, weliba jaceylkeedii dhab tahay, si ay ula sheegtay xaaladan iyo weliba meesha ay wax marayaan. habeen ayayna waxay la kulantay Emmanuel, weliba waxay ku kulmeen geedkii ay ku kulmi jireen, had iyo jeerna waqti qurux badan ay ku qaadan jireen. goortii ay halkaasi kula kulantay, Naomi wejigeeda waxaa ka muuqanaya murugo saa'ida. Emmanuelna waa uu dareemay inay wax weyn qaldayiin. kadibna Naomi wuxuu ku yidhi, Naomi, ii sheeg waalidiintii maxay ku soo dhaheen? iyadana waxay bilowday arrinkeeda inay uga sheegeen weliba qasab ay uga dhigeen in ninkaas lagu daro. Emmanuel arrinkaas aad buu uga murugooday, kama uunasa filin in arrinkan laga soo sheegi doono. waxa uuna yidhi ka waran bal jaceylkeenaagu ku dambayn doona haddii ninkaas lagu daro. iyadana aad bay mar kale u murugootay, waxayna tiri, haddii sidaa tahay aniga lagama yaabo inaan niyad jabo, laakiin waxaan ku siinayaa wax aniga nolosheeda ugu qiimaha badan. Emmanuel markuu intaasi maqlo wuxuu yidhi, maya, lagama yaabo noloshaada inaan ku cayaaro, mana samaynayo. laakiin iyada waxay tiri qasab ayay igu tahay, sababtoo hadda waxaa laysiinayaa nin aana aqoonin, marka waa inaan adiga sidaasi kuu sameeyaa. goortii ay ku qasabtay, ugu dambeyn Emmanuel wuu aqbalay, iyadana halkaas waxay ku weysay gabarnimadeedii. si kastaba haatee, asbuucyo markii ay ka soo wareegteen, Father Martin wuxuu dib ugu soo laabtay magaaladii, weliba taas wuxuu u socday qoyskii ay ka dhalatay Naomi. kadibna wuxuu u sheegay isagoo weliba siiyey lacag fara badan, hadda waxaan doonayaa gabadhiina inaan qaato. kadibna way ka aqbaleen. ka hor intaysa bixinayeyna gabadheedii hooyadii la dhadhaartay waxay tihi, gabadhaydiyey, waa inaad si wanaagsan u dhaqantaa, waxaana kuu rajeynaya inaad ku noolaadinta nolol qurux badan. kadibna hooyada ay ka soo tagtay baabuurka iyana gudaha u soo gashay. Martinna wuxuu gabadhii u soo qaaday dhankaasi magaaladii uu ku noolaay. Martin intii uu waddada ku sii jiray, gabadha wuxuu uga sheekaynayay magaalada iyo weliba sida ay aadna ugu quruxda badan tahay, sababtoo iyada xaafadda ayay ku nooleed oo tuulo camal ah. laakiin iyada hadalkaasi kuma uusan socon, mar walbana waxay ka murugaysaneed noloshay hadda ku socotay weliba mugdiga ay tahay. Martin wuu ogaay gabadhu inay murugaysaneed, haddana wuxuu ballan qaaday inuu sii doono nololtan ugu fiican. guriga ayuu kana weliba guri aad u weyn. kadibna waxa ay weydiisay, aawa ninka aniga i guursa raba? isagana intuu u dhowlacdeeyo wuxuu ku yidhi, wiilkayga aniga ayaa hadda kula kulansiinaya, waadna arki doontaa. inkastoo Naomi aad ay ugu wareegsaneed, haddana Martin wuxuu u yeeray wiilkiisa si uu u soo baxo, isagoo weliba u diray mid ka mid ah shaqaalaha si uu halkaani u keeno. daqiiqado yar kadibna, kalkaalisa ayaa waxa ay keentay nin ay kursi curyaana ku jiidayso, weliba ninkaasina labada lugood ayaa ka jabnay. goortii Rihanna la yidhi waa kaas wiilka lagugu dari rabo, way aamini weysay, hadalna waa uu ka soo bixi waayey. iyadoo weliba rumaysala waxa meesha ka socday, waxay ku tiri, wiilkaadii kan miyaa waad igu dari rabtid? ha ayuu ku yidhi, gabadheediyey, waa wiilkan kuu dari rabo. laakiin waxay tiri, hore igumaad sheegin inuu isaga curyaan yahay, caafimaadkiisana uu sidaan yahay, maxaa dhacay? waxa uuna yidhi, haddii laguu sheegayo haddaan laguu sheeginba waa isku mid gabadheediyey. teeda kale aan kuu raacsiiya, wiilkayga shil ayuu galay, sidaas darteed ayuuna wuxuu ku noqday curyaan, labadiisa lugoodna uu ku waayey. marka gabadheediyey waa inaa ninkan aad aqbashaa. Rihanna goortay arrinkaani maqashay aad bay uga murugootay, waa ayna ka naxday. mar kale ayayna ku celisay sababtuu arrinkan ugu sheegi waayey xitaa waalidiinteeda. waxaa laga yaabaa inay sii lahayeen, laakiin wuxuu yidhi, maya, lagama yaabo, arrinkaana sidaas ayaan kaaga qariyey. Naomi markay ogaatay arrinkaani faraha inuu ka baxay, go'aan waxay ku gaartay arrinkaani waalidiinteeda inay la socodsiiso. waxayna ku tidhi, arrinkan waalidiinteeda ayaan la wadaagayaa. mobilkeeda ayay qabsatay, waxayna go'aan ku gaartay waalidiinteeda inay wacdo arrinkan ay la wadaagto. nasiib darase, Martin ayaa isla markii mobilkii def ka yidhi, waxuuna ku yidhi, hubaanay xilligan waalidiinteeda inaa wacdid, sababtoo wax hadda iyaga ay kuu samayn karaan male, iyagana way ku soo iibsadeen, awood kalena male, maanta aniga ayaan awood leh. iyadoo murugaysanayana meeshay ka tagtay qolkeeda ayayna iska aaday, weliba waxay bilowday inay halkaasi isaga murugooto, ilintana ay aad uga daadato, waxayna ogaatay xaqiiqda qadhadh ay dhex fadhiso. laakiin Naomi ma aysan ogeyn wax kaloo iyada ay samayso, waxaana maamulaya ninkan Martina. sidaasoo kale waxa uu ku qasbi jiray inay la seexato wiilkani lagu magacaabo Maxwell, sida xaaskiisa oo kalena ay la dhaqanto.
arrinku intaas hadduu ku joogi lahaa way fiicnaan lahayd. Waxaa kaloo jira arrin kale kaasoo ah ninkani Maxwell in la yidhi xitaa haddii uu gabadhaasi la jiifto wax owra iyadoo ma qaadayso sababtoo ay ugu waanay tilka asaga oo gala ayaa waxyeello u geystay. Kadibna go'aan waxa uu Martin ku gaaray wiilkiisa booskiisa inuu buuxiyo si ay gabadhani ugu sameeyo inay uur qaaddo. Goortay arrinkaasi ogaatana aad bay uga naxdo wayna ka murugootay. Weliba habeen walba isaga ayaa u imaan jiray si xad dhaaf ayuuna u garaaci jiray kadibna jirkeeda ayuu ka faa'iidaysan jiray. Sidaas ayuuna arrinkani ku waday. Naomi waxay isweydiisay sababtay waalidiinteeda sidaan ugu oggolaadan maanta ay ku noolaato noloshan cadaabka iyo weliba sidaan xanuunka badan ay wajahayso. Teeda kale sababta ugu weyn oo arrinkani sidaan u sameynaya gabadhan noola seexanaya Martin waxay ahayd inay isaga uur u qaaddo sidaasoo kalena wiilkan loogu magac daro inuu dhalay Maxwell. Sidaa darteedna uu halkan la wareego maadaama halkan wiil oo keliya isaga weysto. Haddana wiilkan isaga weysto uu curyaan yahay bal dhanka kale aan u soo wareegno. Emmanuel waxa uu isku dayay inuu waco saaxiibadiisa hore ee Naomi nasiib darrada moobilkeeda uma uusan gelin. Wuxuuna isweydiiyey sababta iyo waxa ku dhacay sababtay moobilka u qabo laadahay. Wuu ogaay in la guursaday laakiin subaxyada ka mid ah go'aan wuxuu ku gaaray bal inuu waalidiinteeda booqdo si uu bal u ogaado xaqiiqda qadaar ay wajahaysa gabadhii. Kadib markuu guriga soo gaarana albaabkii waxaa ka furta maamadii waxayna ku tiri maxaad halkani ka soo doontay. Waxa uuna ku yidhi waxaan wacay gabadhiina marar badan moobilkeedana imuusan dhicin waxaan rabaa inaan bal xaaladeeda ogaado waa sidee. Hooyadii aad u caraysanaya waxay tiri maxaa kaa qaldan waad ogtahay gabadha in la guursaday waxaad ka rabtaa aad u wacanaysaa. Laakiin isaga wuxuu yidhi maya waxaasi ma jiraan aniga waxba kama rabo laakiin waxaan rabaa inaan ogaado inay xaaladeeda fiican tahay. Intii Naomi hooyadeed la hadlaysa ninkii waxaa bannaan ku soo baxay odaygii dhala Naomi kadibna wuxuu yidhi taas shaqadada maahan maxaa kaa galay gabadhaasi waa la guursaday marka waa inaad ka leexataa. Isagana waxa uu yidhi aniga muhiimadan halkan u mid waxaan rabay keliya inaan xaaladeeda ogaado moobilkeedana ma uusan dhicin. Marka sidaas ayaa inii weydiiyey. Aabi ayaa waxa uu yidhi iska daa gabadhaas hadda waxay ku nooltahay nolol aad u qurux badan waqtigeedana ha kaa qaadato waa inaad ka leexataa. Haddaysan ahayn arrinkani booliska ayaa la wadaagayaa si adiga meesha lagaga saaro. Kadibna wuxuu yidhi okay dhib male. Muhammadii oo hadalka u siraacisa ayaa waxay tiri gabadhayda hadda waa seef meel fiican ayayna joogtaa mar dambana arrinkeeda isku soo qaadin haddii gurigana ku soo laabatid ogow wixii kugu dhaca adiga ayaa isku dhigay. Emmanuel oo ogaaday xaaladda inay xumaatay ayaa waxa uu yidhi okay dhib male mar dambana halkani kuma soo laaban doono raallina iga noqda. Odaygii xanaaqsan ayaana wuxuu yidhi raalli ahaantaada marne mar dambe gurigan haddaad ku soo laabatay ogow wixii kugu dhaca adiga ayaa isku dhigay. Inta uusan bixin Emmanuelna odayga ayaa wuxuu yidhi la soco ninkaasi Martin inuu yahay nin hantilaa weliba wax walba uu adeegsan karo marka naftaada halis ha kelin. Markaana waa digniintii ugu dambeysay gabadhaas dambana hadalkeeda isku soo qaadin. Emmanuelna wuu aqbalay isagoo qalbi jabsan ayuuna meeshii ka soo tegay. Goorta Emmanuel meeshii uu ka soo tegay waxa ay waalidiintii bilaabeen inay aad u farxaan waxayna dhaheen aad baan ugu faraxsanahay haddii Emmanuel uuba gabadheena guursan maxaa yeelay ninkaas waa nin faqiir ah haddii uu kusoo biir lahayna maanta noloshaani quruxda badan kuma aana noolaan lahayn. Si kastaba haatee aan dib ugu soo laabanno. Naomi waxay ku nooleed nolol aad u cabsi badan waxayna ogaatay hadda daban inay ku jirto aysan ka bixi karin. Sidaasoo kale guriga uu ku noolay Martin waxa waardiyey jiray ciidamo fara badan korna ka ilaali jiray. Sidaasoo kale Martin wuxuu ahay nin ganacsada hanti badanna leh magaaladana caan ka ahay. Habeen walbana wuxuu u imaan jiray gabadhaasi inkastoo iyada isku dayi jirtay inay barido waxay ka codsan jirtay inuu soo dhowaan. Laakiin isaga waxaasi kama uusan yeeli jirin wuxuuna inta badan ku samey jiray waxyaabaha dhaqan xumada ah isagoo la dhaqmi jiray sida xaaskiisa oo kale ah. Marar badan ayayna isku dayday guriga inay ka baxsato nasiib darrada kuma aysan guulaysan. Sidaasoo kale Martin wuxuu u sheegay haddii isku daydo guriga inay ka baxsato in nolosheeda halis ay geli doonto weliba madaxa laga tooga doono. Iyadana way iska aqbasho waxayna go'aan ku gaartay inay guriga iska joogto. Maalin maalmaha ka mid ayay jikada soo aadasay bal wax uga raadsato halkaasna waxay kula kulantay Maxwell hooyadiisa waxayna bilowday bal inay la hadasho inay weydiiso waxa halkani ka socda. Laakiin maamadii arrinkani waa ay ka gaabsatay waxayna tiri gabadhaydii midaan kuu sheego ogow labadanna haddii la isku arkaanay adiga oo sheekaysanayna waa maalinkii kugu dambeysay anigana waa maalinkii ugu dambeeyay gurigani labadeennana waa nala dili doonaa marka waan ku baryayaa gabadhaydii waa inaad meeshaani ka tagtaa. Naomi markay intaasi maqashay aad bay uga naxday waxayna isweydiisay sababtay maamadu si aan ugu baqaysa maadaama ay tahay hooyadii guriga. Waxayna sidaasoo kale doonaysay inay arrinkeeda u sheegto la xiriira sida uu dhaqmayay ninkeeda. Laakiin markay ogaatay inaysan maamada xitaa awood lahayn meesha ayay isaga soo tagtay oo qolkeeda ayay dib isaga soo laabatay. Waxayna ogaatay hadda inaysan wax kale aysan qorsho kale inay gurigan uga baxsan karin aysan maadaama maamadii gurigaba ayba aad uga cabsanaysa inay arrinkani dhacaan.
laba bil markay ka soo wareegatay Naomi gurigani keenideeda, Martin wuxuu ogaaday in Naomi ay uur qaaday. Waxa uuna yidhi, hadda wiilkayga Maxwell uur ayaa loo qaaday, marnowna cunug ayaa loo dhalayaa. Aad buun arrinkan ugu farxay, waxauna sidaasoo kale la xiriiray dhakhtarkii si uu ogaado xaaladda Naomi. dhakhtarkiina wuu aqbalay. galabgalbaha ka mid ayuuna guriga yimid, kadibna baaritaan ayuu gabadhii ku sameeyey caafimaadkeeda iyo weliba baaritaan guud. goortii uu baaritaankii dhameeyey waxa uu yimid Martin, waxa uuna ku yidhi, Martin oo midaan ku sheego, gabadhan uurka ay leedahay 2 bil maahan ee waa 3 bilood sidaas la soco. isagana wuxuu yidhi sidee macquul ku tahay, taasoo micnaheedu ka dhigan tahay inuusan uurka isaga lahayn ama wiilkiisa Maxwell. laakiin Martin ayaa yidhi sidee macquul ku tahay, gabadhan 2 bilood ka hor ayaan gurigaani keenay, sideyna uurkeeda 3 bilood ku gaaray. dhakhtarkiina wuxuu yidhi ma sheegi kara, kadibna waa uu ka tegey. goortii dhakhtarkii arrinka u sheegay meesha ayuu ka tegey. oday Martin aad buu u xarooday, wuxuuna isweydiiyey qofka cuculkan ee u sido. isla markiina dhinaceeda ayuu soo aaday, waxuuna ku yidhi, waxaan kaa rabaa inaad runta ii sheegtid, yaa iskale cunuga caloosha aad ku sidid. sababuu cunugan 2 bil waa uu ka weyn yahay 3 bilood waaye. iyadana waxay bilowday inay aad uga baqdo, arrinkiina waa ay ka qarisay. kadibna wuxuu yidhi, okay, arrinka saas u qari, waxaan ku tusi doonaa wejiga saxda ee aan la hore u arkin. isla markiina wuxuu yidhi nimanka geestiraaca, weli wuxuu yidhi hala garaaco si xaqiiqda looga soo saaro. nimankiina markay yimaadeen waxay bilaabeen inay ayada si xun ay u garaacaan, waxayna dhaheen ilaa arrintaa ka sheegtay kaama jooji doono. garaacitaan dheer ay garaaceen. Naomi go'aan waxay u gaartay inay xaqiiqda u sheegto, waxay dhahday okayga joojiya, aniga ayaan ii sheegayaa, uurkan caloosheeda ku jira waxaan u sidaa saaxiibkayga hor ama jaceylkayga kaasoo lagu magacaabo Emmanuel. waxayna usii raacsan Emmanuel in ahayd wiil iyada u jecleed ka hor ninkan intiisa soo guursan. goortii nimankii baaritaanka ay soo dhammeeyeen ayaa arrinkii waxay la wadaagado Martin. Martin markuu ugu dambeyntii ogaaday cunuga inuusan cunugiisa ahayn, weliba sheekada ogaaday oo la xiriirta Emmanuel, aad buu uga carooday. waxa uuna yidhi sidee guriga ku joogtaa weliba adigoo sidaa cunug aan cunugayna ahayn, see taasi macquul ku tahay. isla markiina isagoo ka labalabeynayo waxa wacay waalidiinteeda, weliba Naomi aabaheeda. waxa uuna bilaabay inuu aad u cananto waalidiintii, gaar ahaan aabihii. waxa uuna yidhi, waxaad i siisay gabar uur leh, sidaas oo kale 3 bilood ee socota lagama yaabo inaan wax lacag ah ini siiyo. ciqaabtaasna waxaad ku mutaysateen maadaama aad i siiseen gabar uur leh. odaygii iyo weliba hooyadii markay arrinkaasi maqleen aad bay u naxeen, waayna ka murugoodeen. sidaasoo kale waxa ay la yaabeen cayda Martin afkiisa ka soo baxaysay, weliba sida uu la dhaqmayay. lacagtiina uu si aad ugu joojiyey, waxayna ka fikirayeen sidii hadda 3 bilood ay ku noolaan lahaayeen, maadaama wixii ay ku noolaayeen ay ka dhammaadeen. kadibna odaygii wuu xanaaqay, wuxuuna bilaabay inuu nimanka geestara u diro ninka Emmanuel. kadibna waxay bilaabeen ninka Emmanuel inay soo qabtaan, waxayna bilaabeen si adag inay u garaacaan, weliba ciqaab ayay marsiiyeen. Emmanuel intay ciqaabtaasi ku socto wuxuu isweydiinayey sababta isaga dhibaatada loo marsiinayo, laakiin ugu dambeyntii wuxuu ogaaday dhibaataan inuu marayo jaceylkiisii hore ee Naomi iyo weliba xaaladda ay ku sugan tahay. isagoo dhaawacayana waddadii uga dhex tageen meeshii ayuuna bilaabay inuu isaga dhiig baxo, maadaama isaga si xun ay u garaaceen. dhan kale Naomi aabaheeda, isagoo aad u caraysanayo wuxuu wacay ninkii Martin ahay, wuxuuna u sheegay waxaan inuu ka dambeeyey nin faqiir ah, weliba ay xiriir ka dhexeeyeen. oday Martinna markuu ogaaday aad buu arrinkaas uga carooday. waxa uuna Naomi aabaheeda ku yidhi, la soco aniga 3 bilood socota lagama yaabo wax lacag inaan siiyo, maadaama gabadhiina aad si fiican aad u daryeeli weyseen. Naomi aabaheeda ma uusan ahayn arrinkaas aragtigiisa u fiican, laakiin wuxuu bilaabay inuu isku dayo inuu Martin la hadlo. laakiin Martin waa uu diiday, wuxuuna yidhi taasi waa ciqaabtii iyo weliba gabadhiina inaad haleeli weyseen. kadibna waxa uu yidhi okay, dhib ma leh. goortii oday Martin kolka uu ka baxay ayuu odaygii aad u caraysan waxa uu bilaabay xaaskiisa inuu yidhaahdo haye ka warran ka shalayhe 3 bilood oo hadda soo socota lagama yaabo inaan wax lacag helno, waxaana ku noolaan doonaa. maxaa ka qaldanay, maxaa gabadhaas si fiican ugu tarbiyey weysay. laakiin xaaskiisi waxaada lama aysan dhihin oo way ka aamustay, waxayna ogaatay gabadheeda dhibaatada ay marayso, iyadana ay ugu wacneed. laakiin odayga khayladii ma uusan ka sii joojin, weliba wuxuu u sii raacsiiyey maanta in gabadhiisa dartiisa maanta cay iyo wax walba la isugu daray, lacagtiina laga deystay. si kastaba ahaatee aan dib ugu soo laabano dhankan iyo Naomi weli waxay ka fakaraysay saaxiibkeedii hore Emmanuel, waxayna rajeynaysay hadda wax fiican inay caloosha ugu hayso. laakiin subaxyada ka mid ah oday Martin ayaa waxa uu yimid gabadhii, waxauna ku yidhi isdiyaari, waxaan doonayaa inaad ka takhaluso cunuga calooshaada ku jira. marka hore iyada waa ay diiday, laakiin waxa uu yidhi waa qasab ayay kugu tahay, ogow haddii aad diidna waalidiintaada
wixii lacag aan siinaya dhammaan ayaan kasoo wada ceshanayaa. Waadna ogtahay inaysan waalidiintaad intaas aysan bixi karin. Goortii Naomi ay maqashay arrinkaasi aad bay uga naxday. Marka hore way laakiin ugu dambeyn way aqbashay markii la yidhi hiyo lacag ayaa la soo celinayaa. Sababtoo waxay ogtahay waalidiinteeda waxaan lacag inay haysan. Xitaa dhulka yarka haystaan haddii ay iibiyaan inaysan lacagtaasi ay dib isaga soo celi karin. Ugu dambeynna way aqbashay go'aanna waxay ku gaartay inay Martin adeerkiisa ay raacdo. Waxayna ku tiri okay diyaar ayaan ahay. Cunugaygana waan iska soo ridayaa. Kadibna Martin wuxuu yidhi go'aan fiican ayaan qaadatay. Isla markiina isagoo caraysan waxa uu la xiriiray dhakhtarkii. Dhakhtarkii markuu yimid wuxuu war u soo qaaday xoogaa kaniiniyeen iyo weliba daawooyin kuwaasoo ilmaha looga takhaluso. Kadibna dhakhtarkii waxa uu bilaabay inuu Naomi siiyo. Ugu dambeynna waa uu ku guulaystay. Asbuuc kadibna Naomi sideeda ayay ku soo laabatay way fiicnaatay. Martinna wuxuu bilaabay dhaqamadiisii xumaay. Wuxuuna bilaabay gabadhii inuu la dhaqmo sida xaaskiisa oo kale. Naomina mar walba ninkan way bari jirtay inuu ka leexdo, laakiin isaga waa uu ka didi jiray. Iyadana waxay uga dhignay joogitaanka gurigani inuu yahay xabsi. Maalmaha ka mid ah weliba xilli galaba. Naomi waxay soo hadday dhankaasi jikada halkaana waxay kula kulantay Maxwell hooyadiisa. Waxayna tiri waxaan doonayaa inaan arrinku weydiiyo. Maxaa kugu dhacay gurigan adigu wax ugu maamuli laadahay? Kadibna maamadii Maxwell ayaa waxay tahay gabadheedii dhegayso. Waxaan kuu sheegayaa sheekadayda. Aniga waxaan ku noolaa jiray weliba waddooyinka dhankaasi. Waxaana ahay gabar agoona. Waalidiinteeduna ay mar hore ay dhinteen. Waxaana ku noolay waddooyinka. Waxaana raadsan jiray wax cunto aan cuno. Maalmaha ka mid ah Martin ayaa waddada iga soo helay. Kadibna wuu isoo kaxay xaafadda ayuuna i keenay. Maalmihii hore intaan isguursan ka hor wuxuu ila dhaqmi jiray si wanaagsan. Anigana aad baan uga helay. Laakiin balaayadu waxay dhacday markii uu asaga u guursaday. Wuxuu ila dhaqmi jiray si xun. Weliba nolosha ayuu ugu cadaabi jiray. Sidaasoo kale xitaa moobilka iyo weliba waxyaabaha tiknoolajiyada wuu iga ilaali jiray. Isaga ayaana i maamuli jiray. Hortii Naomi sheekaas ay maqashay aad bay uga naxday. Kadibna waxay tiri okay taas waan fahmay. Waxaan ku weydiinayaa waa maxay sheekada Maxwell? Maxaana ku dhacay? Maxaana u sababay maanta lugihiisa inuu waayo? Kadibna maamadii aad bay u murugootay, wejigeedana wuu isbedelay. Waxayna tiri gabadheedii wiilkaas Maxwell waa wiilkayga. Maalmaha ka mid ayaan waxaan isdagaalnay ninkan Martina. Kadibna aad buu intuu carooday wuxuu bilaabay xanaaqii aniga uu qabay inuu wiilkii kula kaco. Kadibna waxa uu bilaabay inuu wiilkii ka soo tuuro dhankaasi balakoonka. Hortii wiilkii dhulka ku soo dhacna labadiisa lugood ayuu sidaas ku waayay. Dhakhtarka ayaana sidaas kala sheegay inuu mar dambe wiilkani uu dib u kici doonin. Sidaa darteedna lugihiisii uu ku waayay. Hortii halkaas ay boqoshay Naomi aad bay uga naxday. Sidaasoo kale waxay u sii raacisay haddii arrinkani booliska loo sheegi lahay. Wuxuu uga hanjabay in labadooda uu ka takhalusi doono. Mar dambena ay dunidan ay ku sii waari doonin. Naomi waxay tiri ninku aad buu xun yahay. Maxaa ka awdan muxuu dadka masaakiinta sidaas u galayaa? Kadibna waxay kala ugu dartay maxaad gurigan uga faka weysay. Laakiin maamadii ayaa waxay tiri sideen uga fakadaa? Sababtoo gurigan waad ogtahay meel walba waxaa ka waardiinaya ciidamo waardiyaal ah. Naomi sheekadaasi aad bay uga murugootay. Kadibna maamadii ayaa waxay tiri gabadheedii ugu Martin hadda doon isku arko dhibaato weyn ayaa dhacaysa sheekadana sida nooca tabaa. Isla markiina waa soo dhaqaaqday. Qolkeeda ayayna dib ugu soo laabatay. Habeenkii oo dhan waxay ka fikiraysay odaygan iyo weliba dabeecad xumadiisa iyo weliba sida uu dadka masaakiinta la dhaqmayo. Naomina go'aan waxay u gaartay in arrinkan uu dul qaadato. Dhankan u soo laabano. Naomi hooyadii aabaheeda gadaal iyo waxay ka xaqiiqsadeen wax walba. Waxayna ogaadeen gabadheeda inay hadda ku jirto xaalad aad u adag. Weliba iyaga sabab u ahaayeen lacagna ay ka doorteen. Habeenkii oo idilna halkaas ayay isaga oynayeen. Waxayna ku fikireen sidii gabadha halkaas uga soo ceshan lahaayeen iyo weliba go'aanka khaldan ay qaateen sidii u sahi lahaayeen. Odayga ayaana go'aan waxa uu ku gaaray bal inuu booqdo wiilkii Emmanuel ahay ee gabadhiisa saa'idka u jeclay. Kadibna intuu tagay wuxuu yiri wiilkayga aad baan uga xumahay. Waxaana ka raali gelinayaa wixii aan kugu sameeyay. Weliba inaan ka doorto qoyska jirina. Maanta ayaana ka shallaynayaa. Ficilkii xumaa aan ku dhaqaa gabadhayda ayaa maanta ciqaabteeda maraysa markaan ku barayaa wiilkaygu iska cafi. Kadibna wuxuu yiri aaba mahan aniga waxba kuuma qabin. Haddana waan ku cafiyey. Naomi aabaheed markii la cafiyeen aad buu ugu farxay. Habeenkeedana gurigay joogeen. Maalmo kadibna go'aan wuxuu ku gaaray Naomi aabaheeda inuu runta u sheego Martin. Kadibna go'aan wuxuu ku gaaray inuu waco. Hortii uu wacayna Naomi aabaheed aad u caraysanaya wuxuu yiri Martin dhegeyso.
wax walboodna siisay, lacag walboodna siisay, dib ayaan kugu soo celinaynaa, waxaana kaa rabaa gabadheeda inay xor noqoto. Otomaatin qosol ayuu ku dhuftay, kadibna wuxuu yidhi waa soo daaday, aad baana ka xumahay, sababtoo hadda gabadhaada ama Naomi waaba xaaskayga, sidee ayaan kuu siinayaa? Odaygiina kulahaa markani maxaa kaa qaldan? Oday weyn ayaa taasay gabadheeda u gursatay, ma adiga ayaan gabadhii ku siiyey, wiilkaada ayaan siiyey. Odaygiina mar kale ayuu qosol ku dhuftay, wuxuuna yidhi war waxaas iska daa, hadda gabadhii aniga ayay ii joogtaa, lagamana yaabo inaad dhinaceeda aad soo aadid. Ogow wax khaldan haddii aad samaysidna waad ka shanlay doontaa, naftaada ayaana waxyeello u gaarsiin doontaa. Weliba wuxuu bilaabay inuu aad u hajabo, wuxuuna yidhi waad ogtahay anigu waxaan ahay nin awood leh. Laakiin Naomi aabeed wuxuu yidhi waxaa artid ahaw, aniga waxaan u baahanahay gabadheyd inaan helo, lacag walbood iyo weliba aad leedahana adiga ayay ku wasaysaa, taas aniga waxba igama gelin, gabadheydana waan jeclahay. Otomaatin oo mar kale qosol ku dhuftay ayaa wuxuu yidhi okay, haddii nin rag aad tahay wax gabadhaada soo doono oo kaala meeshaan ka kaxayso, sababtoo ah hadda aniga ayaa maamulaya, gurigayga ayayna ii joogtaa. Sidaasoo kale lacago yar oo coins ayaa waxaan kaaga iibsaday, gabadhaadii oo dhan lacag ayaana ka dooratay, marka waa inaad mar kale ka fikirtaa arrinkan aad samaynaysid. Kadibna moobilkii ayuu ku jaray. Naomi aabaheed aad buu u carooday, wuxuuna markaani dareemay inaysan asaga wax meesha uga soo indhacdeen, arrinkiina uu ku guuldaraystay, xaaskiisana waa uu la wadaagay. Goortii maqashanaad bay laftirkeeda uga naxday, waxayna isweydiisay gabadheeda sidii meeshaasi xabsi uga soo dhex saari lahayd iyo weliba dhibaatada hadda ay ku sugan tahay. Dhanka kale aan u soo laabanno, Emmanuel go'aan wuxuu ku gaaray si adag inuu u shaqeeyo siduu jaceylkiisa meeshaas uga soo saari lahay. Beertii uu lahay ayuuna go'aan wuxuu ku gaaray inuu falo si uu halkaasi miro ugu beero, kadibna mirahaas uu ku beerana ay u soo baxaana suuqa u geeyo. Howl adag ayuu galay, maalin maalmaha ka mid ah isagoo beertiisa falaya, weliba qodaya godow doonaya miro inuu ku shubo, ayuu wuxuu arkay waxyaabo dareere ah oo halkaasi ka soo burqanaya. Isla markiina waa uu yaab, wuxuuna u tegay Naomi aabaheeda, arrinkii ayuuna la wadaagay. Odagiina ugu dambeyntii wuxuu yidhi wiilkaygiiyo hambaliyo, dareerahaas aad meesha ku aragtay wax kale maahane ee waa saliidda ceeriinka. Kadibna aad buu arrinkan ugu farxay, wuxuuna bilaabay odaygii isla markiiba inuu waco shirkadaha ka shaqeeya dhankaas iyo saliidda ceeriinka sida loo soo saaro. Goortii ay baaritaan ku sameeyeenna waxay dhaheen waa saxsan tihiin oo saliid ceeriin ayaana meeshii laga helay. Isagana go'aan wuxuu ku gaaray dhulkaan oo dhanba inuu iska iibiyo, shirkadaas ayuuna ku wareejiyey, isagoo halkaasi ka helay lacag fara badan. Wuxuuna magaalada ka dhex iibsaday guri aad u weyn oo weliba aad u qurux badan. Hadda isaga waxa uu noqday Emmanuel nin taajir oo weliba hanti fiican haysta, laakiin saaxiibadiisa marnaba ma uusan hilmaamin. Wuxuuna go'aan ku gaaray markaan inuu arrinkaani xalliyo. Emmanuelna waxa uu wacay Martin, waxa uuna yidhi waxaan kaaga baahanahay jaceylkayga in aysan haddii kale booliiska iyo arrinkan la wadaagayaa, caqabado kale ayaan la kulmi doontaa. Martin qosol ayuu ku dhuftay, waxa uuna yidhi ka hor intaad miyaha diiban faqiirow, waa inaad noloshaada ka fikirtaa, ma ogtahay booliiska sheegaysa xitaa aniga inaan maamulo, teeda kalena magow arrin qalbidaad samaysa waa ka shalay doontaa. Isla waqtigaas Martin oo la hadlayay Emmanuel waxaa maqlaysay gabadhii yareed ee Naomi, go'aanna waxay ku gaartay markaani nolosheeda inay khatar u bareerto, ninkanna aysan la sii joogin. Kadibna jikada ayay aadday, waxayna hore u soo qaadatay midi ay doonaysay ninkani inay dhibaato u geysato. Kadibna way u timid iyadoo isku soo qurxisay, weliba jacayl ayay u muujisay, waxayna bilowday inay isaga halkaa ku siiso, waxayna tiri aad baan ku jeclahay. Horta intaasi maqla aad buu ugu farxay, kadibna shaqaalihii kale waardiyeynayay iyo wuxuu ku yidhi bax guriga baxa. Kadib goortii ay ka baxeenna iyada mididii ayay qabatay, kadibna way ku mudday, weliba 7 jeer ayay ku mudday, kadibna meeshii ayuu ku dhacay. Naomi sidaasoo kale booliiska iyo wacda arrinka ayayna u sheegtay, weliba ninkaasina iyada dishay. Booliiska markay xaafadda yimaadeenna iyada ayay xabsi ku taxaabeen, weliba iyadoo lagu soo eedeeyey dil inay geysatay. Dilkii loo geystay Martin ayaa warkiisa waxa uu ku faafay magaaladii oo dhan. Sidaasoo kale warkii waxa uu gaaray Naomi aabaheed iyo weliba hooyadeeda. Goortii intaas ogaadeenna aad bay uga naxeen, waxayna dhaheen gabadheedii maxaa sidaas u samaysay, waxaana dilkaasi u geysatay. Sidaasoo kale dadka xaafadda idil waxay bilaabeen inay dhahaan ayay ka warramo gabadhii, hadda waxay dishay odaygii ganacsada ahay. Maalmo markii ay ka soo wareegdeenna waxaa la gaaraa xilligii la maxkamadeyn lahay Naomi. Sidaasoo kale maxkamadeynteeda waxaa ka soo qayb galay ninka Emmanuel aad baan u murugaysanay, wuxuuna ka murugaysanaa waxa ay samaysay weliba caqabadaha ay la kulmi doonto. Kadibna meeshii waxaa soo fadhiisatay Martin xaaskiisa, waxayna bilowday wax walba inay ka sheekayso, weliba dhibaatadii iyada u geystay.
sidaasoo kale waxa ay ka sheekaysay cunugeeda dhibaatada u geystay weliba habdhaqanka ula dhaqmi jiray iyo dhibaatadaasoo idil iyadana hadda ay tahay qof dulmanaa waxayna ka codsatay gabadhaas inaan wax ciqaab la marin. qaadigii markii wixii oo idil uu dhegaystay qalbijab ayuu dareemay kadibna waxa uu yidhi aad baan uga xumahay maruu waxa kugu dhacay sida kalena waxaan rabaa Naomi maadaama iyada dil ay geysatay ciqaabteeda waxa ay noqonaysaa in 3 bilood oo xabsiya ay soo laqdo 3 bil kadibna fari ay tahay maxkamadiina halkaas ayaa lagu soo xiray. dhaga kale Emmanuel maadaama isaga nin taajir ah oo ay lacag badan oo samaystay waxa uu asbuuc kadib xabsigii ka soo daayay weliba isagoo lacagtiisa isticmaalaya jeelkiisa ama saaxiibadiisa Naomi. goortii xabsigii laga soo daayay gabadhii yareed ee Naomi maamadii ayaa u timid weliba dhashay Maxwell waxayna tiri gabadhaydii aad baad u mahadsantahay sida xaqiiqda aad balaa ku keentay iyo weliba ninkaas qiimaha xun sidaad uga goysta waan kaaga mahadcelinayaa hadda wixii ka dambeeya anigii wiilkay nolol fiican ayaan ku noolaanaynaa. cidina waxay tiri maya maamo waan isku leenahay. Emmanuel goorta xaaskiisa uu ka soo saaray xabsiga wuxuu go'aan ku gaaray guri weyn inuu qoyska ay ka soo jeeda Naomi oo magaalada uga iibiyo. guri weyn ayuuna soo dejiyey aad bayna ugu farxeen. wixii intaasi ka dambeeyana waxay ku noolaadeen nolol aad u qurux badan. waalidiintiina way ugu mahadceliyeen sida wanaagsan oo la dhaqmayo. sidaasoo kale Emmanuel wuxuu dib ula gudoomay gacalisadiisa ama jaceylkiisa 2 bilood kadibna arooskooda ayaa dhacay. asxaabay sheekadeenna halkaas ayay ku soo dhammaatay. hol su'aalaan weydiiyey ashir nooca ayaad ka barateen sheekadani fikirkiina kumantiga nagula wadaaga oo walaalkiina marqadooni leh muuqaalka like saar kanaalka subscribe waa qisada xigtay sidaas iyo amaana Allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.